xaruntani maanta uu gudoomiyaha ismaamulka Mandheera Cali Ibraahim Rooba xariga ka jaray waa xarun lagu daryeelo laguna xanaaneeyo kitaabka Quraanka Kariimka oo qaarkii gabaladiisa markii uu kitaabka go'o qashinka lagu daro waxaana arintani u istaagay kana dhidhiyay gabdho Soomaaliyeed oo u dhisay xaruntan uu xariga ka jaray gudoomiyaha ismaamulka Mandheera Cali Ibraahim Rooba xafladda xarig jarka xarunta daryeelka kitaabka Quraanka Kariimka ee qolkii Eebbahay ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah bulshadii ka soo qayb gashay waxaana ugu horeynba ka hadlay gabdhihii arintan hindisay ee fikirkaani lahaa kitaabka Ilaahay oo dayacan oo meel walba ku dayacan ayaa waxa go'aan ku gaarnay gabdho muslimiin ah inaan tashano oo kitaabkan Ilaahay aan sida aan waxaan ka qaban karnaa aan ka qabano waxaan go'aan ku gaarnay inaan guri gooni ah sameysano oo la yiraahdo qismatul Mandheera تعظيم لكتاب الله قسمة مديرة fadhigan ka horeeyay aan samaysanay December Nairobi aan ku samaysanay waxa ka marxati kacaynin la dhaho aadan ducaale wuxuu reey Mandheera daatiin in baahnidiin Cali Roobaad qabtiin nin ahlu diinaad qabtiin nin idin taaganaad qabtiin taas maanta waxa marxati iga tustay sida loo soo ajiibtay ma sha Allah tabarakallah waan ku leenahay walaal waxaan u baahanahay gaari aan ugu adeegno kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulkii Mandheera inaan naga siiso dhul aan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu dhisano garabna noogu ahaatid haddana deen baan lagu leeyahay godkaas aad aragtay godka kaliya 600,000 ku baxday annaga waxaan ahnay gabdho guri joog ah hatta shaqaale dawlad ma nihin beecsharo ma suubino shilimaadka odayaalka nasiyan u baan ka soo siisiibnay waxaan u baahanahay gacantaadii iyo gacanta muslimiinta sidoo kale waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar kamid ah culimada magaalada Mandheera Sheekh Cabdiwali iyo Sheekh Axmed Suudaan xaflad la soo imaatay ugu sharaf badan way imaam Nawawi caalamku inoo taqaaniin oo Soomaaliya waliba gaar ahaan kitaabis aad ay u akhrisata wuxuu leeyahay ajma'a al-ulama ala ta'zim kitabillah culimada Ilaahay dhan waxay ku ijmaaceen ay ku kulmeen kitaabka Ilaahay in la weynay inay waajibta qadi ciyaal wuxuu leeyahay oo sidana caalamku weynay shay wax kitaabka Quraanka kamid ah ninkii fududaysta ama ihanaysta waa gal muslimiinta dhan isku waafaqay inuu gal yahay waxaan rabnaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintana asaga soo deji asaga ilaashana asaga xifdintiisana waxaba kamid ah gabdhaha Ilaahay soo saaray waan aad u jecelnahay qofka sameeyay tago guriga tago arintan inuu ka danqado oo dadka gaarsiyo sidii Ilaahay kitaabkiisa sida loo dhaamo kitaab nool akhrisanahay mise kitaab dhintay oo wax oo la akhrisan karin oo la asturahay oo marka meelaha lagu toorin biyaha gaarin wax hadda oo lagu indhaha lagu arkay gafan indhiis ku arkay wax Mandheera waa meel laga ma keenin hatta tuulinka laga ma keenin Mandheera gudaheedu way dugsiyaasheedu masaajideedu way oo Quraanka isku dhigay oo roob baabi'iyay marka insha Allah ta'ala khayrkin Allah badiyo intii meesha lugtooda keentay ugu dambeyn guntii iyo gunaanadkii iyo gabagabadii xafladda xarig jarka xarunta daryeelka kitaabka Quraanka Kariimka ee qolkii Eebbahay waxa soo xiray barasaabka ismaamulka Mandheera Cali Ibraahim Rooba marka gabdhaha hadda programkan kaliya ma aha programyaal badan bay wadaan oo aniga qaasatan mar walba aan ku farxo hadii Ilaahay soo waafajiyo gabdhaha ay isu soo saareen inay wax ka qabtaan inaan taageerno gacan siino inta tabartaanada insha Allah ta'ala codsiga dhul inaan idin siino meesha caasimada u dhow waan idin ka qaadnay dawladda waxyaabaha qaarkood noloma ogolo yaani hadii nolo ogolaan lahaa lacagtan haysano madrasooyin iyo masaajidaan ku dhisi lahayn caawimaadka badi aan caawino inaan jeebabkeena ka bixinay noqotaa waxyaabaha laakiin sharciyan aan marin karno dawlad moogtay aan idin siin karno dhul sharci waan idin siin karnaa dib ma lahan gudoomiyaha ayaa goobtaasi ka sameeyay lacag aruurin si cid walba oo danaynaysa daryeelka kitaabka Quraanka Kariimka ay wax ugu darsato ugana faa'iideysato fursadani qaaliga ah 800 ma bixin kari hal jeer because programyaal badan oo iskugu imaad laakiin qayb waan ka bixin 200 insha Allah First lady 100,000 barakallahu fik MCA-shana ku imaaday waxay mas'uul qaateen 200,000 inay bixinayaan 100,000 Mheshimiwa Umar Sala MP Mandheera East oo maqan gabadha xaaskiisa ka xanuunsan taki ku maqan yahay Ilaahay weyn oo waaxid inuu caafimaad si u faatax mara amin 979,000
marka hadda 21,000 baa ka maqan in 1 milyan ay gaarto hadda 1 milyan iyo 4,000 1 milyan iyo 5,000 lacagtu waata ma istaagayso maxamed sheekh maxamed al-Faqri warbaahinta Star Mandera.